taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar waxayna kulamo kala duwan la yeesheen madaxda iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Qatar. taliyaha ayaa waxa uu maalintii shalay ee 28 bisha labaad kulan la yeeshay taliyaha xabsiyada dawladda Qatar Maxamed Sacuud Al-Utaymi iyo saraakiil kale wuxuuna kala hadlay xoojinta xiriirka uu ka dhaxeeya labada dal iyo sidii dawladda Qatar ay uga qayb qaadan lahayd dib u dhiska xabsiyada dalka iyo horumarintooda qalabaynta ciidanka asluubta Soomaaliyeed dib u dayactirka xarumaha agoonta dalka iyo arrimo kale. dhinaca kale wafdiga uu hogaaminayay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta booqasho ku tagay xabsiga weyn ee ku yaala magaalada Dooxa waxaana halkaasi ku qaabilay mas'uuliyiin iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Qatar waxaana madasha lagu soo bandhigay qaabka casriga ee ay u shaqeeyaan xabsiyada dalka Qatar waxaana intaasi kadib la isla meel dhigay waxyaabaha ay doonayso in laga caawiyo dawladda Soomaaliya. Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa ka warbixinaya kulamada iyo waxyaabaha ka soo baxay. sidaad la socoto ilaa iyo daraad waxaan ku jirnay booqasho aan ku joognay aniga wafdi saraakiil oo ila socda oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed dalkan Qatar magaalada Dooxa safarkaygii ilaa hadda si wanaagsan ayuu ku socdaa ilaahay xamdigiisa waxaan la kulanay madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan Qatar oo ciidanka asluubtu uu hoos yimaado iyo maamulka xabsiyaduba kulankaas uu shal dhacay wuxuu ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan runtiina si wanaagsan ayaan wada hadalnay waxaana la soo qaadnay muxuu ahaa mashaariicda ka socota ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo reformka ama isbedelka aan ku wadno iyo mashaariicda horumarinta ee bilowga ah ee isugu jirta farsamada waxbarashada muxuu ahaa dhismayaasha qalabaynta iyo dhammaan wixii fududeyn lahaa howlaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo sidii ciidanka asluubta Soomaaliyeed uu gudan lahaa kaalinkiisa muxuu ahaa dib u tababarista iyo dib u toosinta dhalinyarada Soomaalida ah ee qawaaniinta si maartay ay iskaga hor yimaadaan oo maxkamaduhu soo xiraan si ay dadkaasu ama dhalinyaradaas barito wiilasha dhaba barito markay dhameystaan muddada maxkamaduhu soo xiraan in ay muxuu ahaa dib ugu noqon karaan bulshadooda iyagoo xirfad leh aqoon leh inaanu meesha ka sii wadno waxbarashada qof kasta meesha ka maray kii aan waxba aqoon inaanu waxbarashooyin kala duwan iyo xirfado farsamo aanu siino waxaan ugu nimid marka dalkan walaalahanahay ee Qatar inaanu arrimahaas sidii aan soo kaashan lahayn sidii ay musaacido uga geysan lahaayeen howlahaas ama mashaariicdaas horumarineed ee ka socda ciidanka asluubta Soomaaliyeed si wanaagsan bayna maartay isu afgaranay maanta waxaanu hadda ka nimid xabsiga weyn dalkan ee ku yaala magaalada Dooxa waxaan kaloo la kulanay taliyaha ciidanka asluubta oo ciidanka dalkan waxaan isla soo qaadnay wixii aanu shalayto mabdiyan uga wada hadalnay oo farsamo ah anagoo ka codsanay waxyaabo badan oo muxuu ahaa u baahan yihiin xabsiyada dalkeenu in ay naga kaalmeeyaan waana isla afgaranay waxayna noo ballan qaadeen in wax allaah iyo wixii muxuu ahaa suuragal ah inay nala samayn doonaan waxaanu soo booqanay dhammaan qaybaha xabsiga weyn ee magaalada Dooxa uu ka kooban yahay gaar ahaan waxaanu daneynaynay dhinaca tacliinta waxbarashada iyo muxuu ahaa mihnadaha meelaha lagu barto runtii wax aad aan ugu soo maartay qanacnay aan rajeynayno inaanu waayagnimadaas dalkeenu ula noqono oo badanaaba wax bilow inoo ahaa ah hase yeeshee ay naga aanu ka codsanay inagana ballan qaadeen in ay muxuu ahaa gacan naga siin doonaan marka ilaahay xamdigiisa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in uu kulanmadii aanu la galnay madaxda dalkan in ay ahayn kuwa guul ku soo dhamaaday waxaan rajeynaynaa insha Allah mirahoodii mar dhow in laga arko xabsiyada Soomaaliya iyo guud ahaanba ciidanka asluubta Soomaaliyeed.
maxaabiista ku xidhan xabsiga ku yaala magaalada Dooxa ee wafdigu ay booqdeen ayaa helay fursado muhiim ah waxaana la baray farsamooyin kala duwan waxayna soo saaraan agabyo si weyn loo jeclaysto iyadoona wafdigu ay booqdeen qaybaha kala duwan ee maxaabiista lagu baro farsamada gacanta barashada kombiyuutarka iyo waliba akhriska. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish magaalada Dooxa.